وصلى أجمعين مدحنا جمهورية الفدرالية أيوة دمان أصحاب تكلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام كبعدي وحان يرد بسنة يا وحان كتير ينوع الله فكر يوحد مدينة هذو كلا دوين وعن كترين لا أفر إلا واتسع قرح يستغنين نوصل إن أمر السور أفر إلا واتسع بروديق إن قرح لا تغنو قرح يستغنين وأنت قرح لا وبحنا إنه تغنو سيان بروديق وادق نقولة دمتي وحيد هاي دمتي وجارسية قرح أقول أنت فكر كاو حرّينا سوى شيء وحنا جرنين inaan istaagno oo daqiiqad la aamuso meesha diinta ka soo gashay meeshan dhaqan ay noogu haydin la ii sheego rag baan dagaalamayna waan isaynaa diin bay noo sheeganayaan waxaan rabnaa inaan diin u sheegano oo kula dagaalano dadkanaga u sheegno waxaan inuu baadil yahay oo diinayn sida gaaladii baan intaan istaagnaa aan aamusno aan foorarsano aan sidan yeelo ruuxaas diin ma nimanka tabriir u sameynaysan ma iyaga rabtaan inaad dhigana u banaysaan nimankan iyaga waa inxiraafay oo manhajkii ka leexday oo diintii ka baxay annana aamusnaan leenahay daqiiqadan istaagno fadlan waxaan idinka codsanayaa dhaqankaasi maaha dhaqan islaamka shaqo ku leh hala jooji rag baan isaynaa aan iska cel weer cas oo la xidho calaamad la qaato isna says waxba ma samaynayso aan rag iska celino rag baan isaynaa diin bay sheeganayaan aan ka faa'iidaysano aan culimada kicinno dadku ha kaceen hooyooyinku ha hadleen ururada bulshadu ha laado dadkii aan abaabul dagaal galno waan cas baan qaadanay madaxaan ka xidhanay qorraxdaan istaagnay waan aamusnay maxay soo kordhinaysaa ana waxay waan riyoonaynaa guriga qabow baad ku jirtaan maalin walba aan isu nimaadno daqiiqadaha la aamuso hoos ha loo foorarsado iyaguna ha yidhaahdeen gaaladii waxay samaynaysaa fiir waa aamusan yihiin inaga daaya bilaahi calaykum haddaan shir furanayno aayadaha quraanka loogu horreysay iyaga lagu furo waxa kale ka dambeeya waa torolog heesta aan qaadno baaba astaan wadanku leeyahay aan ogolaano maalin walba hadda tii soo baano aamusnay tii kalena maano aamusnay maxaan xaqirayna shalay bay ka dhacday hotelka halkan ku yaalay aan ayadana aamusnay intaan istaagno waxay la tahay anigu sidaan ma u arko wax si aan iskaga celinayno mas-uuliyiintu ha istaageen ha qaateen go'aan ah inay dadkan la dagaalamaan shacabku aan dhiiggiisa isticmaalsano ka faa'iideysano dadka intaan abaabul aan la dagaalano dadku maanta iyaga diyaara aan ka dayno wariyo saxaafadana waxaan istaaga laga daayo dadka loo sheegay aan aamusnada ka daayo inta hadaan ka soo raali ahaada hadalkay kuleel ku jiro waxaan ka hadlaynaa iyo waxaan ka tashanaynaa waa wadan burbursan soo roonaanaya maalin ba isteebaan soo marayno waan qabaa shalay meeshu aan maanta inuu dhaamo saaxiibkii xaaf waan kaga bedelaa laakiin maxay u baahan tahay nin walba inuu ismaadiyo ma aha waxay u baahan tahay maanta tallaabadan qaadno inaan hore uga waxayno aniga berri waxbaa lay weydiin doonaa taariikh baan geli doonaa warninkii xamdoodaha markuu meeshaa joogay muxuu ka qabtay laakiin yaa mas-uuliyadda qaadanaya madaxweynaha hadda jooga maxamed cabdullaahi farmaajo meeshee buu ugu yimid muxuu soo kordhiyey waad maqlaysaan hadda taariikhda soomaalida markii laga hadlayo dowladdii cabdullaahi ciise waxaa laga soo bilaabayaa xilligii kala guurka ahayd markaasaa nin walba la soo sheegaya mid la ammaanayo mid wax laga sheegaba aan ka fakerna marka qof waliba wuxuu waddankan kusoo kordhin lahaa iyo buuggan la qorayo wuxuu ku darsan lahaa ilaa waxa waa la qoraya kolley dad baa qoraya oo ka shaqaynaya dadkan iyo dalkan cidna uma maqna ceello uma qodna annagay jawaab naga sugeen annagaa lana sugaya waxaa maalmahan aada u socsocotay shir kismaayo ka dhacay iyo dowlad goboleedyada iyo maxay soo sameeyeen iyo dowlad bay duminayaan iyo waxaan rabaa inaan idiin sheego xaqiiqadu waxay tahay gogosha anaa dhigay jubbaland baa gogosha la dhigay maxaa loo dhigay mashaki baa ka jira in khilaafiya jireen hadalla jireen wax la isku qabsadi jireen miidiyaha war la isaga gudbinay qof wali uu ogyahay waxaan u dhignay inaan isu nimaadno oo aan tashanno oo wada hadallo oo wuxuun isku ogaano soomaalinimo u tashanno waxaan ka cararaynay sida dhaqanku ah Soomaalida
in markii laba qof wada hadallaan la yiraahdo Addis Ababa la isugu yimaado iyo Nairobi iyo Kampala iyo London iyo Meelbla shir loogu qabanayo taasaan diidanay waxaan ka hadlaynaa waxay ahayd waradaga Soomaaliya maxaa Soomaalidan waa aan isweydiino ma aha in shir dawladda federaalka lagu shirqoolayay ma aha in midiyada wax laga sheegay waxa midiyada lagu baalayay oo lagu hagaajinayay oo lagu la talinayay xidid manihin dad hoos u kala foorarsanaya waxaan ka wada hadlaynaa waxay tahay bikulli ixtiraam waxa talada dadku ay tahay iyo dalka ay ku jirto iyo maslaxada inaan isu sheegno oo aan annana isu soo sheegnay dawladana isu sheegayno bikulli ixtiraam annagoo madaxweynaha ra'iisul wasaaraha labada gole ee baarlamaanka iyo cid walba oo hayna waxaan ku wada hadlaynaa inay noqoto wax Soomaali dan u ah maanaan ka shaqaynay wax Soomaali kala geynay waxaan u nimid maaha wax la heshiisiinay shir dib heshiisiineed maaha waa shir wada tashi waxa madaxweynuhu noogu yeeray ma ay wada heshiisiin waxaan ka dalbanay dib heshiisiin ma ahayn wada tashi iyo xagee baashu laga jirtaa halkan ay jirtaa dhinacana ka fiican inta isleeyaan ceeb ma waxa ceeba inaan waxna isu sheegi weyno banaankana isku xamanno oo aan markaan soo fadhino wax la sheegi waayo marka dambana wax banaanka wax la iska sheego taasoo waxaan ka doorbidnay inaan ilaahna Cali oo maxaad qabtaa war Umar oo maxaad qabtaa Xaliimo oo maxaad qabtaa Faarax maxaad qabtaa taasaana sax midaas ayad waxaan soo nimid waxa laga hadlay inaan samaysanay dalad aan soo nimaadno waaran maaha dawlad kale madax bannaan oo madaxweyne gooni ah oo qaabkaas waa dalad ay ku midowsan yihiin oo buugeena buluuga ku qoran aan haysanay dastuurka isagu uu qorayo inay wada tashadaan caalamkana ka wada jirta ana caalamka kale maana soo arag laakiin siday sheegeen qoliyaha saaxiibada ay soo arag oo macnaheedu yahay inay wada tashadaan maanta gaalka mudug iyo Puntland ka dhaxaysa waa inaan tagi karayno ka shaqayn karno sidaan shalay ba u tagaynay oo aan idhaan waraan saxano aniga Shariifku wax badan baan isku haynaa koonfur galbeed iyo Jubaland intaan isku badari doono oo 6 gobol ka dhigayno caalamka wali kamoona tagin inaan isweydiino oo aan Shariifo sidaan ma aha xataa balaan xiriir ka sameeyno talaabooyinka aan qaadayno hawlgalka la geliyo waxay noqonayso oo Cabdiwali iyo ninka la yiraahdo Xaaf iyo waxa ka dhaxeeya dadka dhibka badan ee reer Mudug gacanta ku hayaan taladooda iyo waxay qaban lahaayeen iyo aan isugu waxaynan annagu bal dawladda federaalka hadda wax ka mashquushay annagu aan isku daynaa xal ka gaarno ee ma aha wax aan dawladda leenahay Cabdiwalina waa madaxweynaha Puntland gudoomiyu sanadkan noo yahay ma aha madaxweynaha garab simano madaxweyne wada hadlaysa ma aha hadda wada hadlayaan waa gudoon sanadla oo qaabkaas taa marka aan leeyahay waxaan rabaa inaan idin sheego fikirkaas inuunan ahayn sida loo tarwiijinayo suura xumadana in laga daayo dawladda waa dawladayadii waan aqoonsanahay waan ka dambeynaa isyaanku sharciyan ma banaana madaxweynaha iyo gudoonka baarlamaanka iyo prime ministerada iyo kulli waxa soo dhawaa mas'uuliyiintii aan la shaqeynay xaq weyn noogu leeyahay waxa laga rabaa iyaga markaa wixii xumaada ana waxyar baan ku yeelanaynaa iyaga inta badan qaadaya wixii wanaagsanaada iyaga inta badan qaadaya iyaga magac ku yeelanaya inay noqdaan kuwa u dadaalaya oo ka dadaalaya oo garanaya dadka ay xukumaan iyo kuwa yihiin waxaan rabaa inaan mas'uuliyiinta kulligood u sheego garta wadanka la xukumo waa kuma wadankan xukunaay ee mas'uuliyadda u sheeganaynay waa ka aan hawada ka xukunay dhulka ay rag kala haystaan waxaan haynin haddaan xukuno maxaan xukumaynaa hadduu dadku waa dhammaado maalin walba intaas ay socoto waxaan rabnaa inaan garasho u leenahay cidda aan xukunno wadanka aan xukunno midka uu yahay meeshuu ku yaalo dadkiisa kuwa yihiin maalin walba ama waxaad arkaysaa message lagu soo diraya ama qof ridda taagan oo leh magafa ilma Liibiya igaga haysta bal inta kale iska daa maalin walba hooyaa taagan baryo u taagan qaaraan baa la gurayaa guri baa la gadayaa jiingadii ay ku jireen bacwaynayd bay dib u gadayaan booski baa la gadayaa maxay tahay gabadhii iyo wiilkii ama gafa ku haystay Liibiya beerka laga baxay kaliba laga bixiyay war maalin walba qaraac ma ku jireen dadkan intaan faloorkan fadhidaa mas'uuliyiin ama wallahi iyaga la weydiinaya aan isku dayno inaan kor u fakaro waxyaalaha hoose waxaan anu tabanayo
waxa cali tabanayo waxa cumar tabanayo kulli intaan ka baxno waxaan ka hadlaynaa inay noqoto wax dadka iyo dalka wax taro waan ka tagaynaa bari la shak ka isla riijiya iyo ka isla riijin hadaan mooshin laga keeninayo hadaan ku kala ereeyo imaninayo hadaan makhaasir lagu qabaninayo waxa markii laga soo tago time-ka baa dhamaanaya hadduu bato laba teeran qof joogi kara kuwa isteediyada ma aqaan hadda waxa ugu qoranba dastuurka intii joogi karaan iyagana waa laba ka badan ma jirtaan maran ama halkayba Soomaalidu dhamaysan qof waliba marka adoog inaad tagayso waari meesha wara ka hor maalinta joogto waxa qaban karaysa qabo maalinta kula talada kula gudboontahay inaan qoomoono markaan ka tagnaan idhaahno alleelay maalinta sidaa ahayd inaad sidaa tiraahdaa fiican Soomaalidu waxay u badan tahay qofku markuu mas'uuliyadda ka tago talada helaa markaasuu wuxuu oranayaa saasa fiican hadda nin kasto soo maray u fiirsada wax kasto oo shalay ku madaxadka maanta wuxuu qoranayaa talada saasa fiican oo saasa fiican sababtoo markii uu joogay ma gafahaystay Soomaa ya markii uu joogay waxba hayay ma gafahayay si kale wuxuu jireen way ka qarsoonayd laakiin markuu ka dagay way ku soo dagaysaa sida waxyigi markaas waxa arkaysaa soo tala wanaagiisa offer nin kasto mas'uul soo maray maanta tala weydiiyo wallahi waxa ugu fiican buu idin sheegay dadkana aan kuwa anaga nala talin iyo kuwa mas'uuliyiinta kale la talin kulli yeena qarqoomin oo yaan dadka inta badan tushuush badan lagu furin hal loo daayo inay madaxdooda bal si dadku u fakaraan oo tala wanaagsan qaataan oo wax fiican lagu la taliyo aniga marka la ila talinayo hala ii sheego waxaan ku khaldanahay amaanta yaa la iga daayo yaan amaan la ii bilaabin hal la ila warniyo digi cabaatay khalad kanaad geysatay meesha kaama jirto talaabadaas sax ma ah taa waa dulmi midda Ilaahay baa kugu caroon taasaa talada dhabtaayt haddii laakiin markaan isla joogno qofkan waxa rabay uu amaano marka damaano quruur baa ugu dhici Soomaa halana siiyo talada dhabteen mudanahay in lana siiyo halana sheego oo dadku aan nasixeen sababtoo aanu wajigayga ma arko laakiin gabadha iga soo horjeeday waxay arkaysaa wajigayga waxaan Axmed meeshaas malaha derbiga saarta iyo cajiin baad ka maray iyo waxba igu sheegay Soomaa taasaa sax marka waan qaadanaya marka ilaa muraayada qofka kale isagaya aan taasna qaadan hadii ilaahay waxaan codsanayaa maanta fursad baan haysanaa shacabkan dhibaato soo gaadhay taariikhda laga faa'iideysto dadkan aan dagaal galno aan iska dayno istaaga iyo foorarsiga iyo weerka caseen qaadanayno oo aan la dagaalano nimankaas oo aan diin bayna kula dagaalamayna culimadu ha kacdo oo hooyooyinku ha istaageen oo ganacsatadu ha istaagto oo wax garadku ha kaco oo kuwa ganacsatada cabsanaya dhinaca kale ka warwareejinaya inaan cidna loo turayna arkeen oo ka hoteelka deganay hoteelka iskale canshuurta haduu bixin waayo shabaabku lacag bay ka qaadayeen haduu bixin waayo waan ka duwinaynaa la leeyahay intuu meeshooda ugu tago ha kula soo dagaalamo oo xakamka kuwa ka dhiganaya intaan ka qabanaan layno oo aan dagaalka galno ani midaas ay la tahay wadankan amnigiisu wuxuu u baahan yahay gacan adag in lagu qabto oo ay noqoto decision adag oo kulligeena ka wada shaqeyno ma markaan sida la qof waliba inuu mas'uuliyadda amniga uu qaadanayo waa in cid looga dambeeyo ay jirto dadka kale oo dhan ay ku ixtiraamaan shaqadooda xildhibaanku waa inuu ku ixtiraamaa hay'adaha amniga hooyooyinku waa inay ku ixtiraamaan hay'adaha amniga aabayaashu waa inay ku ixtiraamaan wasiiradu waa inay ku ixtiraamaan mas'uuliyiintu waa inay kulligood ku ixtiraamaan oo looga dambeeyo jihaaska amniga shaqada uu ku jiray iyo khadku leeyahay hadduu la istaago waa in la istaago haddii la noqon waa in la noqdo haddii la arko wada xiran waa inay xidhnaato dib uga noqdo qofku oo uu teesara la soo bixin teesara la soo baxaysa riski kale uu kugu yahay in la aqoonsada lafteedan ku fiicnaan inaad markaa meel walba teesara kula soo baxdo iyo waxaan aan ahay inaad tiraahdo waxa ka fiican waxaad qabanaysaa adoo si toos u qabto aad baan idinku mahad celinayaa haddii hadalladayda kuleel ku jirana waan idinka raali gelinayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.